dhammaan asxaabtayda quruxda badan meel kastaad kala joogtaan dunida daafaheeda xilli kasta iyo waqti kasta idinka waxaan idin leeyahay wacana wanaagsan waa aniga oo أنا الحمد لله إذا صار ذلك أنا وحرجنا أنا يقول بدنتنا هذه وناكسنتين أما بعد ما أنسى وامحي وبرنامج يعني تدريت منك السؤال إيه ها هذه قوم يستكان هذا وهذه جاي داونا هذا برنامج كان يعني نوعه مرتيه وقبل يوتيوب برا وحرجنا أنا تسوي وين دونتان إن شاء الله بإذن الله الكريم هلو ريان ها ولا شيء لول وانكو السلام ولا وانا ندوه وانا تقوم عاد سنتاي سيدا دي سودويسي aad soo dhawo baan ku leenahay xabiibti kun iyo coacher waana noo farxad inaan riyaan waqti la qaadanayno dabadeedna ay halkan ka soo muuqatay waanad ku mahadsantahay xabiibti qaali sida aad nooga jibtay codsigeeyagii walaalana sidoo kale waad mahadsantahay waana dhawahay thank you very much xabiibti qaali waxay inoo yaalaa halkan 17 su'aalo marka hore adiga rayaan صح شخصي أهان هذا ما استقانا ريان أهان ما قرن كرتها ريان أما ريان ما لا ريان قوان استقانا ها صفي عن حبيبتي وان استقانا مركل ريان وتمر ريان ومقعي رسمي قهرت ورحمة أحمد محمد مقعي نكنيم كيغا ريانا waxaan joogaa magaalada berbera waan ku barbaarin kastoonan ku dhalan laakiin waan ku barbaaray ayaan wataa waayahay aad baad u mahadsantahay soo dhawow magacaaga saddexan waad noo sheegtay waayahay rayaan maadaama jiri waan isaqaanaa oo inoo sheegtay inay tahay gabadh iska dheragsan صح rayaan dooqa dharkeedu talo waa nooc ma labiska ay ka hesho walaal inta badan anigu waxaan ka helaa kalarka madowga ama binkiga labada kalar ba aan ka helaa inta badan cuntada iyo cabitaanka haddaan istiraahdo rayaan casuun maxaan kugu casuumaa ama asxaabtaad ku daawanaysaaba ay istirahdaan inantiina youtuberada ku soo dhaweeya maanta walaalo cuntada waxaan ka helaa inta badan chickenkan ka helaya bariiska hadday sharaab noqotona waxaan jecelahay caano muuska adigu wax isku jirjiro ma jecel inta badan ama caano finto ama mushakal markaan rayaan fahanteeda ka hadalo talo rayaan dabeecadeedu waa mid nooc ma walaal dabeecadeeda horta qof walba qof wanaagsan buu isku yaqaanaa aniga rayaan ahaantayda waxay turjumi karaa oo ay garan karaa saxaabtayda iyo dadkayga agdhow inaan dabeecad wanaagsanahay laakiin aan waxaan isku haystaa inaan dabeecad wanaagsanahay oo bulshaaweed iska ahay laakiin markaan rayaan nafteeda ka sheekaynayno maadaama istaqaano waa qof dabeecad wanaagsan aad iyo aad waa thanks su-aashana shanaad haddii aynu ku soconno dhanka dulqaadka xagga talow siday ku tahay xagga walaal aad iyo aad baan ugu wanaagsanay laga yaabaa markaan cadhoodo inaan markiiba hore uga soo noqdaa laga yaabaa oo qofkii aan cafiyo marka dulqaadkayguna aad buu wanaagsan yahay oo qof mar walba xanaaq badan ma yihiin rayaan maxay xiisaysaa ma ka heshaa anigu walaal waxaan ka helaa inta badan markaan guriga joogo waqtiga waxaan ku qaataa horta inaan daawado filmaanta musalsalka xagga cibaadadna quraankii waxa akhriyo ayaan jecelahay aad iyo aad inta badan waxaad moodaa xagga musalsalada nin dumarka farabaas bay waxaa ku hayaan aad iyo aad waayahay haddii aynu kusii socono su-aalaheena صح furan ma tahay mise waad xidhxidhan tahay dhanka bulshada marka loo eego ku dhex noolaanshaheeda sidee baa tahay yay xidhxidhan tahay talow riyaan mise waa qof furfuran horta xagga bulshada xabiibti aniga marka la eego dadku waxay yaqaanaan inaan ahay qof xidhan sanadku bada isku aqaano waxaan ahay qof iska xidhan waayahay haddaba waxaynu u soo galnay su'aalihii xasaasiga ah kuwaasi waxay haayeen su'aalo yar oo soo dhaweyna okay talow riyaan cabirka dhererkeeda ma taqaana maadaama ay tahay gabadh aad u dheer walaal xagga wali isma qiyaasin dhererkayga ma aqaano waxaan jecelahay insha Allah inaan baran doono insha Allah waxaan ugu talagalay barnaamijkan hore youtuberada ugu ma arag hadaan adigu hore u arag صح shakhsiyaadka way waxa loo baahan yahay inuu hadduu is aqoonin isbarto
waa waxyaabaha lahaanshaha adigu waxaaga waa inaad isqeexi kartaa ama aad isgaran kartaa marka waxaan jecelahay oo aan isugu dayay inaan fikirkan kusoo kordhiyo inuu shakhsiyaadku isbarto haddii uu is aqoonin uu ka faa'iidaysto su-aalahan oo kale iminka waxyaaba badan baad inoo sheegtay taasoo kale waa u muhiim dadka su-aasha waan ka tagnaa soo maaha iyadu waa male aad iyo aad xabiibti aad iyo aad su-aasha sagaalaad iminka markii hore dhararkaaga ahayd balacaaga balac sooma lihid micnaha cabirka waxaad ka wataa micnaha qofka weydkiisa culayskiisa micnaha miisaankiisaad ka wadaa markii la ku faaside qof iminka soo balac ma lihid dhanacaaga garbaha oo kale maryaha markaa aad tolanaysid toobabka oo kale seesahaan yaa lagugu cabirin cabir lagu soo qaado dawaamayaasha oo kale tusaale laakiin ma aqaano taakis waa yahay xabiibti insha allah waad baran doontaa baan rajaynaya kulamo dambena waxaan rajaynaya markan inay noqon doonto haddii aan la hawooda lahayd mayna dhowr jeeroo dambe aanu halkan kugu arki doonaado xabsan ma laga yaaba inaad isku daydo inaad dib usoo isu soo baratid inta kaa maqan insha allah xabiibti waa rajaynaya inaan mar labaad idinku soo noqon doono anigoo dee hubkaygii sitaa aan kula su-aalaha si fiican uga jawaabay inkastoo ninka qaar ka jawaabay aad iyo aad waaya marka taa laga yimaado horta anigu shaahayga waan wataayo mashahaynaysa mise waa keligay uun xabiibti kelidaan weeyaan marka hore inaad adigu casbintay malaa jeclaan xabiibti okay waayahay mrs riyaan ma taqaanaa xaddiga culayskeeda miisaankeeda inta uu yahay ma garan kartaa si fiican baan u aqaanaa oo waan garanayaa kaa waan ka adagahay laygu siri maayo miisaankaygu waa 67 miisaanka ma dharkaa lagu qaadaa intaasina waa ka sayr kolay miisaanka qofka lafihiisun bay ku xidhan tahay waxaa jira qof buuran oon haddana miisaankiisu badnayn marka inta badan anu qof iska dheer baa gaba dheer baan ahay marka laga yaabo inay lafii culaysiyo dee hilib culaysiyo maarke lambari misaayad kabaa xidhataa su-aasheena 11 sidaas ayay u dhigan tahay xabiibti kabaa waxaan xidhaa 39 ilaa 38 mar hadday dheer xabibti su-aashan aan kusoo wado waa su-aasha 12aad aad ayay u xaasaasi tahay maadaama inta badan ay ka xanaaqaan dumarku in halkaa la weydiiyo sax da-daada riyaan da-deeda ma garanaysaa tolo mise waan ka qalaynaa taana waan ka dhufanaa maya maytaa waa laga gambiyayaa waayo waad ogtay waxaa layihi horay maamaha u baxda waxaa layihi nina mushaharkaa weydiin gabadhna daana marka taa waa ka gambiyayaa waayahay riyaan tolo maalin ma ayay dhalatay ma garan kartaa maalinta ay dhalatay magaceeda xabibta anigu waxaan dhashay maalin isniinaan dhashay bishii shanaad shanteedii ha saacadii ma xasuusataa lagu dhalay maamada ma kuu sheegtay alla xabibta meelugeeda hoosteed baa ku dhashaan filayaa ee saacadna lama garana beriga waa lagu sheegin adaan weydiin islaantee waayahay waxaan soo gaadhnay oo soo siqaynaa guntiga gabagabadii baad moodaa inaynu kusoo durugnay laakiin weli laysma gaadhin su-aashii 15aad baan marayaa xabibti qaaliye rayaan lafaha jirkeeda ee ilaahay ka dhex beeray ama ay ka uuman tahay ee markaa qofka bili-aadanka qurxiya waayo lafuu qofka ayay qurxiyaan oo hilibku u qabta talow lafaheedu imise ayay ka kooban yihiin inta lafooda aadamuhu leeyahay balqaasata rayaane ma garan kartaa lafaha ilaahay kugu dhex abuuray intay ka kooban yihiin shaah wanaagsan maya xabibti taa ma garanayo taasha ma garanayo okay waxaan rajaynayaa asxaabada inay ka faa'iidaystaan oo xagga dhakhaatiirta ay la xidhiidhaan iska ogaadaan okay su-aasha waynu ka dhaqaajinaa soo maaha waa male male okay waayahay su-aasha 16aad sax maadaama oo ay riyaan hore inoogu sheegtay in ay istaqaano maadaama aan riyaana istaqaanid barnaamijkeenana uu ku magacaaban yahay adigu ma istaqaanaa xubnaha jirkaaga waa imise ilaahay kugu beera ma taqaana inta xubnood aad leedahay ee muhiimka
adigu iyo xubnaha muhiimka 6 baan u aqaanaano inkastoo wada muhiim yihiin jirka bilaadanka meesha ku xanuuntaaba aanad ka soo kabinayn may laxaadkaad sheegaysaa adigu may laxaad kama sheegayo xubnaha ilaahay iminka beer iyo kaliyo iyo wax noocaasa soo madihiin aad iyo aad wadnaha marka inteebay xubnahaasi imse ayay ka kooban yihiin حبيبتي دي سكول كنا ونكرها قصي في عن ما قرنا سكول كمان والله دخاترت نمع النار سمينا نمع كل شيء مايا قبل ناس حبيبي مش شيء إما كان دي بدأ مايا كسر upgrade ما سمعنا إما كان بالسكول هي بيولوجي كي كيرا نقولنا ما دام دي حاسب سيستم أنت هذا جو sidaad u aragtaa laakiin adigu rayaan ahaan barnaamijkan adigu ma istaqaan xabibti maxaad sidaad u aragtaa fikir ahaantaada walaal ma sha Allah waan soo dhaweynayaa youtuberada yar baa tahay waa dadaalaysaa inta karaankaaga ilaahayna kula qabto barnaamijkan aad baan soo dhaweynayaa waan ku faraxsan inaan ka mid noqdo qofkii labaad oo filaya qofkii iga horeeyay aad socon kula yaqaan laakiin barnaamijkan maxaad isleedahay tolo miyuu fiican yahay faa'iido ma u leeyahay bulshada mise waan ka joojinaa xabiibti may xabiibti waa barnaamij faa'iido badan u leh oo waayo anigu imika waxyaalaha aanan garanayn baa jiro imika dib ka baadhayo oo di xasuusisay marka waa barnaamij fiican barnaamijyo kale noocan oo kale inoo keen baan ku leeyahay insha Allah waanu ka qayb geli doonaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka saaxil waxaan leenahay YouTube-ga kor loo qaado insha Allah iyada laftirkeeda yaa idin gaban waa gabar youtuber rayaan marka waxaan leeyahay asxaabteeda quruxda badan rayaan ha lagu yaaco inta halkay joogta xagaana ha isku shubto dhan kastaba walaashay qaali wali ma dhadhawin laakiin su'aasha waa su'aal aad u weydiinin waana su'aashii u dambeysay 17 هيا حبيبتي last question maxaad filaysaa su'aashan maxay kula tahay ma garan doontaa ma garan doontid aad iyo aad كل ومعروف ما دامت الويسي ما صار marka waan isku xabibti su'aasha 17 waxa ay u dhigan tahay sidatan dhiigaagu waa noocma faraxsanay baad inaan isku dhig noqono dhiigaygu waa obalaas marka waa dhiig inta badan la helo waa majority dhiig inta badan la helo bilaadankeenu yahay marka alxamdulillah xabiibti dhiigaygu waa obalaas aad iyo aad ha run waa dhiiga oo aad u badan xabibti qaali qalbi waxaan maraynaa gunta iyo gabagabadii halkaas ayaana barnaamijkeeni intaas ayuu gaga ka muhiimadu waxay 17 su'aaladina ku weydiin barnaamijkeena wuxuu ahaa adigu ma istaqaana hadii aad istaqaano ka jawaab 17 su'aalood oo maanta ay martiin ugu ahayd walaasheen Raxmar Riyaan waa gabar youtuber oo ku nool gobolka Saaxil waxaan rajaynayaa in gabadha lagu yaaci doono intaas xabtiga halkan joogta waa inay halka ka soo muuqda markano kaliya ma aha dhowr jeer oo dambena waxaan rajaynayaa inaan kulmi doono Riyaan حبيبتي حدنا leedahay aniga asxaabta adinkii asxaabta aad ayaan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay waa bir Ramadaan halays cafiyo Ramadaan bay nagu soo foodlay ilaa khayrkeega hayna siiyo ajarkana ilaahay naga aqbalo adigana aad baan ku salaamayaa kaliya laab baan ku leeyahay daa asxaabtana soo yaacan ku leeyahay YouTube-ka subscribe iyo like iyo share tabanoogu iyo comment-iga ilaa kaluli la kayga dawaka ha naga samicaynay aad baad u mahadsantahay caafiye musaamax umada islaamka meel kastoo aad kala joogtaan waxaan idin leenahay cafi iyo musaamax inta wax haysi soo cafiso anagu cidna wax uma hayno laakiin kulligii basaamax ayaa naga tihiin cid kasta insha Allah bidmillaahi kariim asxaabteeda quruxda badan naad ku jecel meel kasta aad kala joogtaan iyo xilli kasta iyo waqti kasta oo idin tahay waxaan rajaynayaa idinkoo nabad qaba inuu kilibkan idin soo gaari doono rayaana hore loo sii raaco alla ya ciise aad baan idin salaamayna sagalaan boqortooyo aniga Riyaano isku duba waxaan idin leenahay goodbye